waayahay waxaa inka ballan qaaday inaa qiso saddexaad idiin haayo soo maaha soo fariista si fiican koob shaaxa soo qaata cadeys arrinta arrin khatar ah waaye digtoonaada marka idinkaga sheekeynayaan ani comment qaldan ha iisoo qorin ha igu soo rafanin aniga youtube-kayga konton kun oo sii socdaa hal video oon qofka dulmiyana kuma jiro hal video oon qofka beenka sheega kuma jiro weligii arrin aan aqoon iyo xitaa ma ka hadlin noloshaydan aniga ma aragtay doonida shidaal la-aanta badda korkeeda aan ku heehaawayo aaba dhib iigu filanba ma fahanteen hooyo oo ilmo iska korsato agoonley iska ahoo qaar aabahood oo nool yaho agoon camal korsato ma aragtay ayadaba problemkeeda iska badan yahay ma fahante marka aniga doonideeda shidaal la-aanta aan saaranahay badweynta hindiya aba iga badan mid kalena maaro uma haayo qofkii aniga comment qaldan iisoo qoraasay u taalaa ani laakiin runta wixii igu dhacaa kuu sheegaya kulley haddaa wax qaldan iisoo qortid oo mala adi maskax ahaantaada aa malaysay adi ilaahay maalinta qiyaamo kula xisaabtamaa kulley anigu waa iska kaa cafin karaa wax weyn ma ani waxa ay caysa meel igama duleelinaya waxaan noqon ahaynna ma noqonayay ma fahanteen youtube-kayga intaas maraayo kontonka kun kusii socda hal qof hal commenti oo negative oo dhahaya haniya waxay bil iga samaysa ama si ataa ma kasoo helaysa caawi beradaa wareeganaysa anyway diyaaradda ah kasoo raacayna philippine oo usoo socotay Addis Ababa kolley waxaan isla soo raacnay wiilku waa wiil aday goboladaas waqooyi kasoo jeedaa soo ii sheegay hadalkiisana waa ka dareemaya waqooyi aan wax u fahansana meelahaas aday gojac gadaalkiisa cabna meelahaas wuxuu igu dhahay waa iswareysanay wiilku waa isbaranay xamza la dhahaa xamza waa isbaranay waa sheekeysanay maasha allah waxaan noqonay laba qof oo friends maadaama hal kursi ee diyaaradda wada saarnayn wuxuu igu dhahay magacahaniya ligu dhahaa asagana xamza la dhahaa u dhahay maxaa taa dhaqtarka dumarka ah oo dhahay dhaqtarka dumarka ma taha noloshay marka si hoose u hadalna aniga asiga saan meesha wax kasoo bilownay wiil asfahnay oo ahaa inta safarka ku wada jirnay markaas wuxuu dhahay kabaran haddaa nolol fudud ah kuu sheego simple life maxaa waaye waa ii sheeg bal maxaa waaye u dhahay dumarka markay shiid noqdaan waxaa jiro waxyaabo easy ay iibsan karaan jirkooda ku jiro bismillaahi raxmaani raxiim bismillah waa nax ani wax la iibsaayba markaa maqlaaya naag intaasoo mar qaliin gashaa ah waaba sasanahay qaliinaaba saska ahaybo goos hataa waa iska bixi la ahay si cirbad liigu duraayo oo marna liiga sooxinaya marna dhabarka liiga duraayo oo marka dhabarka lagu duro xataa waa aragteen waxaa galay nolol caadi ma ku jirtid waxaa noqonaysaa qof oo markin waxaa noqonaya camal dawaqsan oo normal ma tihid yacni dabaqa lagaa tuuraa biraa lagugu dhufanaa intaa lagaa ridaa waxas camal aa ku jirtaa marka wuxuu dhahay adiga isma caddaysid naagaha is caddeeyinna waxay haystaan uu dhaho ugxaan wax la dhaho oo muhiim oo qaali ah adig waxaan ina ani ugxaan horta waa fahmi waaye ugxaan soomaaliyeed adinku si fiican igu soo sharax ani ugxaan ma makasaaye markii dambe uu iisii fasira wuxuu idhaa ugxaan waa meel hebel wax ku jiro ani hadda waxaas ma rabo inaa dad waxa ragaa daawana caruuraa daawanaysa kasii sheekay ugxaan waxay ku jirtaa meel heblaayo markaas aan fahmay okay marka horta wuxuu idhahay dhiigaaga waaye markaas ku dhaani dhiigayga b negative waaye markaas aniga warjiclida iga badatay wax inuu iisha sharaxa iska rabaa laakiin waxaa la gada doonaa ma filooyi ma fahamtay waxay dhahaa marka dumarka waxay iibsan karaan oo badanaa jiro oo ugxaan la dhahaayo oo ku jiro maadaama aan u sheegay inaan 7 caruur dhalay oo hore aan usoo sheekaysanay historiga oo wiilasheeda ee qaar fanfoo dhameeyeen oo midkii oo 3 jir 9 sano bar oo jiro waxa igu dhahay enough adi wax ilma u baahan tahay ma jirto intaas korso diyaar intaas korsana marka waxa igu dhahay from now hada ku sheega ka waran business aad sameyn kartid oo jirkaada oo niyo seex u jiraan aan ku dhahay markaas waxa igu dhahay ilma waxaan la soo boodo war ilma galeenka miyaa rabtaa inaan gato waana naxay xogo waa qalqal markaas waxa igu dhahay maya ugxaamo waxa la dhahayo fudeed haye mali qalayaan dheh ma lagu qalaayo aniga waa warjicli oo idin sheegay waxaas war ila sii waraysta araba mali qalayaan dheh ma lagu qalaayo dheh waxaan ku dhahay marka adiga waxaas waxa gatamiya aragtay markaas uu yiri haddadaas aan wuxuu yiri aan socdo dumar aan ka iibsadaa aan iska iibiyo yacni wax qasaba maaha waa wax qofkii asagoo duu rabo intuu tago meesha uu iibsanayo ilaaha inagu dhaariyay marka waxaan soo xasuustay erey gabar yar oo dirisnahay oo Safiya la dhaho ay hadda koor ii sheegtay oo wallahi ay run tahay qofkii wallahi magaca ilaahay qiimihiisa oga moogtay markaas waxaan dhahay walaalow anigu reer Soomaaliyan aan ku iri waxaasna weligeena ma maqlin dadkeena xamar ka imaadeen iyo inta xataa Nairobi 15 sano ku dhawaadan joogo waxaas ani ma maqlin markaas wuxuu igu yiri xamar aaba intaasoo xabo kasoo qaada laga soo gadaa oo laga keenaa waa meesha ugu iibsiga badan wariyaha ilaahay rasuul yaqaan ma waasaas haye waxa soo wax iska caadi ah ina dumarka wuxuu xataa qaarkood markii qaliimada lagu wada laga gurtaa
qaarkood wuxuu dhahay markii dhaqaatiirta dumarka u yimaadaan oo biraha lagu xaqa looga gurtaa qaliina looga bixiyaa si farsameysana looga xadaa marka wuxuu yiri dumar badan soo ma arkin uu dhahay oo inta ayagoo yaryar oo hal sano guriyahooda joogeen inta la kaxeeyo isbitaal la geeyay dhahay heblo wax ma dhalin 4 sano ninka ag fadhisaa 6 bil markay fadhiso dhahay ayadoon isku dheeli tirmin uu dhahay hormoniskeeda hadday rabto oo ewel khalkhalsanaa markay gabar ahayd oo ilaahay inuu ilmo sii lahay lagaabo ee beexay dhahay isbitaal tagay waxa la dhahay waa inaa la soo xaaqo waa inaa la gubo waa inaan ta laga rido tiyuba xiran intay wax ka xiran marka wuxuu yiri saas darteeda looga xadaayo dhahay laakiin ani wuxuu yiri wax waligeey xada ani isbitaal weyn ka shaqeeyo oo sabab ku yaalo waxna ani ma xadiyo dhahay laakiin dumarka iyaga imaado weyn naga iibsadaan meeshaan ku yaabaan fariistay ilaa waxay adduunyada waxay la kulusha oo la degi laadahay oo ila holceyso oo ila kharibantahay dadkii muslimka oo muslimka sheeganayeen oo kitaabka ilaahay lagu dhalo oo lagu soo kariyo yaa ileenba uqxaama iibsanayo wax uqxaan liira wallahi ani uqxaantaan iga soo dhaadhiciye bal ilaa hadda waa fahmi laa meel uqxaan la dhahay waxay ku jiraan maba ka sooy ilaahay ila og ma aqaani 15 sano noo jiraan wiil dhalay ilaa haddana 2024 ay 22 ay ugu dambeysay cunugay ugu yar laakiin dadka dhaqaatiirta iyo wax soo firfiiriyo wax isma aqoon ata aniga ninka dama markaa guursaday 2 sano iska ag fadhiyay ma fahamtay حتى هبينا برستمول ومعنينا لما دلو ما قاي ما قابني ما يجي هاد موكي مكشاجي كري والله إلهي أمريكا سمرت مواس كذا لعدنا مركا أصحابي دريدو هيركاسي مريسا أنا وحبها إلا يابن لسبيان هلا يابن جاي هلا يابن ناجي إني بحان يعني ممكن أتجان وكم تهاف إيجا قضو وياكم مسلين ما بنان تاجر كا قضو مسلين إنهاف لقطو واي ويلك وحكوده مركا حمزو كورن waxaas amal qof muslim ah taan dhaay adii dhaqtar kulli muslim ah tahay mana banaan waxa sheegaysid waxa maqla gaalada cadaanka markay ilmaha 3 markay dhalaan ayna shid yihiin ilma galoonkooda ay tuurtaan dhac way uga taamba ee kuwaas waa kristaan waa la gartay diinna ma haystaan ana kale dad muslim ah nahne wiilku wuxuu i dhahay kulli adii joysa leedahay hada waxa gada kartid raqama ku reebaya inta magaalada joogtid wax weyn ba ma oo idhaas laba habeen la kugu soo kala tuura lacag marka sheekada gabadha yarada Sofia dhaha markii idinka sii dabageenay dhageyst intuu video eed iga gaareen ka Sofia waxay aaday Hindiya dhagaha laga haayay iyo bogana haraati loogu dhuftay waxa nusreed Hindiya markay tagtay wallahi waxay dhahday dhakhtarkii igu horeeyay Hindiya oo inta ay ka booking gareysatay isbitaalka inta ka booking gareysatay markay bixisay waana ka bariiro la gursanin waxay tiri saas ma commission ii galiyo waxay dhahay ku tahay fiiri waxaan iga iibsanay gabadhaasna garuudaada wallahi marka sax ku dhahay aan dhitribiha waana xidhada ma hayeen aan dhigay ilaa qof oo ku dhex jiro mishiin oo la baaro oo axmed laga iibsanayo already laga baxa ma leeyahay ma waana xidhada lagu ha ka jiray maxaa aan dhigay wuxuu dhigay dhim malaha waxaan waa MRI waaye la inta laga fiirinayo boga nabara ku yaala gaaska nabar ku sameeyay lahayd nabarkaas ma dhamaanayo wiligiis uu kugu oolaayay laakiin inuu oo faaf amal ah ka digtoonaanay ugu dhahay inay inta markuu sheekada ii dhameeyay wuxuu dhigay ugxaanta waa ugxaanti labaada maqsad 20 waa maqlaaya ugxaanta kugu badan فول وزائد marka gabar yarna waa tahay inay zakuwa inay bari problem kugu keento waa ina half ka iibsada $20,000 aan ku fiina sugan dheetir horta waa wada hadleenay waraaqaha ii qor imaareegana wuu dhamaado markaas waa bala damiyay ka soo baxay waxay dhahday banaanka marka ka imaaday daawo iska daay jawaab iska daay wixii tir dib isbitaalka ma u fiirin horaan carray dhahday dadka ma ogtahay ani xamada alay dhakhtarkaas ma ku dhax soo xilay baad oo MRI ku dhex jiro oo intuu igu damiyo wax iga sheekay lahaa waa ku dhax soo xilay yani la iga fiican waa ka carar isbitaal class ka adeey dhahday lacagtii iyo wixii ay dhiibta dhanka kac waayay dhahday aragtidii wixii waxa la igu ma daaweynay ku dhahday marka arintaas gabadhaas markay ay sheegtana naga taa kun ruux waalna tahay waba arin caadi ah marka waxaan la iibsanayo oo dumarku ay iibsanayaan oo nin Soomaali ani oo igu dhahay iga iibso xamara hadda ka soo qaada intaas oo xamarna looga soo qaadaa intaan oo la wadaa reey xamar hadaan intaan oo la wadaa indhaha ma iibsanoona mardo ilkaame wallahi ani mugo alxamdulillah inta dhal garo waa dhalay duqoobe gabdhaha risko is ilaaliya marka ninkiina 2 bil la joogtay mise 3 bil ciidaha waa aqaanaa saddexda waxay soo bilaabeen wariyaa naagta uurmiyay ku yeelad wariyaa naagta uurmiyay ku qaadada waa dabeecada anaga gaar u leena Soomaaliya hadana uur inaan ku sasno koode wiilka uu sabruna uu naxa wuxuu dhahaa wallahi billaah talaa ku iman wuxuu dhahnaa heblay maxaa aad uur ma yeelatid liidooya uur ma yeelatid miyaadi marka
uur intaa lagugu furo stress oo baxdid waxaanta lagaa baxsado kadibna dhaliba waay waxaa dhahdaa aniga weligeen insaan waay waraani waan la arko ama comment wuxuu soo qor ama iska daa ani waa kuu sheegay go is ilaali haddii kalena ani igu soo rafo ani sidii ani hanti kaas oo qaatay waxaan in shaqirtaa suuqa xoolaha ninka ii soo qoraaba la yaaban waaba ilaa walaalo ani hadda Kenyaan asla iska noqdo waxa ay wala soo rafanin ku sheega hadda dambi ka gal ruut igu dacway ruut ma arkin igu dacway xas shaqada ani masuul igu ruuto igu dacway waana ku salaama bye